qalliimada lafaha ama dhammaan qalliimada ka hor dhakhaatiirtu waxay diraan baaritaano qalliinka ka hor qofka xaaladiisa caafimaad la fiirinayo. Si gooni ah lafaha haddaan uga hadlo, waa muhiim in qofka inta aan la qalin la baaro. Haddii aan la baarin oo qalliinkii qofkii aan la ogeyn keliyihiisa ma fiican yihiin, beerkiisa ma fiican yahay, sanbabihiisa iyo wadnihiisa ma fiican yihiin, suuxdintii iyo qalliinkii si nabada ma uga soo bixi karaa soo dhibaato kale ku dhicin, waxaa ka imaan karta khatar. Waxaa laga yaabaa marka dadka qaarkood inay ku imaadaan ay ku dhahaan doctor 3 dhiigaa la qaadaa, 4 dhiigaa la qaadaa, hepatitis B, C, HIV iyo HB-giisa bis noo baar, qalliinkiina noo sameey. Taas khalad waaye. Waagii hore haddii la samey jiray oo cilmiga aan la ogeyn, hadda waxaa la ogaaday bukaanka badqabkiisa iyo badbaadadiisa inay ku jirto in qalliinka ka hor la baaro. Ujeedka loo baarayna waxay tahay in la ogaado xaaladii, haddii ay wax dhiman yihiin, haddii ay wax khaldan yihiinna la saxo. Taasna waxay ku jirto badqabkii iyo overall safety-gii bukaanka. Marka bukaanada markay isbitaalada tagaan, marka dhakhaatiirtana waxay muhiim inay ammaanadii ilaaliyaan, wixii daruuri bukaanka ay u diraan. Borotokoolada caafimaadka waxay sheegayaan tusaale qofka 40 sano ama 50 sano ka yar caafimaadka qabo dhiig specific ah loo diraa. Qofka ka weyn ama qofka ka yar ee xanuuno qabo, xanuunadaas iyo waxyaabihii ka imaan lahaa complication-nadii ayaa la xaqiijiyaa qofkan inuusan qabin. Marka bukaankii oo loo diyaariyo qalliinkii waxa uu muhiim u yahay in laftii keliya lama kabine bukaankii oo dhan oo nabad qabo oo caafimaad qabo oo laftiina kaban tahay asigiina sidiisa kale dhibaato kale aysan ku dhicin ayaa soo kacayo, dibna noloshiisii iyo nolol maalmeedkiisii tartiib ugu laabanayo. Marka baraarujintaas bulshada ku baraarugaan. Assalaamu calaykum.